السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامية ميل والبود أدونك كجوكتان سوماليي waxaan ku jirnaa dabaaldegii kowda luulyo oo looga dabaaldegayay adduunyada meel walba ay Soomaalida ku nooshahay maanta waxaan nasiib u helay oo ila jooga laba nin oo aad looga yaqaano dalka Canada iyo magaalada Edmonton mid kamida waa Cabdirasaaq Weheliye oo ah gudoomiyaha dhalinyarada jaaliyadda Soomaaliyeed ee Edmonton ninka kalena waa Cabdullaahi Raage waa idin salaamayaa waxaan ku soo dhaweynayaa kaamirada Cabdirasaaq Weheliye bal ka waran jawiga iyo xamaasadda maanta ka jirta magaalada Edmonton ee dalka Canada walaal maxamed ibraahim cumar aad u maasan tahay marka koowaad ilaahay maanta kale maanta isku keenay xaflad qurux badan ayaa maanta ka dhacday magaalada Edmonton si qurux badan ay dadka uga soo wada qayb galeen maanta oo kale kowda luulyo waa maalin aad loogu weyn waa maalin Soomaalida ay midowday waa maalintii xornimada la qaatay waa maalin xusid naga mudan oo in la xasuusto dadka anaga halyeeyadii naga baxay in la xasuusto maalin mudan weeyaan marka waa maalin aad loogu weyn waaye marka aad baan u soo dhaweynaynaa Soomaalidana aad bay uga qayb qaatay dhalinyarada ha u badnaato Soomaalida sanadkan si aan caadi ahayn ay calanka u garab istaageen marka yididiilo dowladnimo noo muuqato marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa dalkaanagii oo nabad ah oo barwaaqo ah inuu Ilaahay nagu sumo insha Allah waa mahadsan tahay Cabdirasaaq waxaan rabay su'aal kale inaan ku raaciyo nooga waran dalka Canada Soomaalida ku nool iyo dadka hadda xafladan idin kala soo qayb galay shucuurtooda waa sidee wallahi sanadkan waxaad moodaa sanadadii hore inuu aad iyo aad uga bedelnaa si fiican bay dadka uga soo qayb galeen ayadoo kuleel badan uu jiro oo qorraxda aad u kulushahay haddana saa ay tahay Soomaalida aad bay calaamada u soo qaateen aad bay u soo banaan baxeen banaanada la iskugu imaanayay dadka way wada shaaxeynayeen waa biyo la wada cabayay si aan caadi ahayn ayaa loo sanadka inuu sanadihii hore ugu duwan yahay u malaysaa marka waa horumar aan isleeyahay aad Soomaalida aad bay dowladda macnaha u jeceshahay dowladdeeda iyo calankeeda weliba jiilka cusub ee hadda ah si aan caadi ahayn ay u garab taagan yihiin calanka buluuga ah marka dalkaana Ilaahay noo dhiso insha Allah waa qayb baan rajaynaa insha Allah Cabdirasaaq Weheliye waa mahadsan tahay yaa halkan ka salaamaysaa maadaama aad fursad u heshay inaad la hadasho YouTube-ka Maxamed Ibraahim yaad rabtaa inaad halkan ka salaamto horta marka ugu hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan leeyahay hambalyo kooda luulyo kuwii isgarab istaago oo habeenii maalin isgarab taagnaado oo dalkooda dhisto sida wadamadan North America oo kale ay horumar ku gaareen kuwii horumar u gaarin oo alla naga dhigo waxaan kaloo farayaa in calanka la garab istaago mar walbana dowladnimada unbaa wax wanaagsan ah dowladda in la taageero waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Weheliye gudoomiyaha jaaliyadda Edmonton ee dalka Canada Cabdullaahi Raage oo ku salaameynaa marka hore walaal ku soo dhawow YouTube-ka Maxamed Ibraahim waxaan rabay inaan ku weydiiyo shucuurtaadu maanta say tahay shucuurteedu aad iyo aad bay wanaagsan tahay maanta Soomaalida aad iyo aad ay u faraxsan tahay ما شاء الله maanta waa maalin ugu weyn oo aan la soo koobi karin marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka dacalladooda ka joogaan waxaan leeyahay hambalyo waa maalin aad noogu weyn waa maalin aanan la imaami karin marka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta thank you very much waa idin salaameynaa Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogtaan waa walaalkiin Maxamed Ibraahim Cumar haddii aad ka heshaan barnaamijyada aan idiin soo gudbinayno waxaan idinka codsanaynaa in aad subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta noogu dadaashaan raggaasna barasho wanaagsan waa rag Soomaalinimada ay ku weyn tahay dharka iyo waxaad ka garanaysaan iyo si u labisan yihiin waa idin salaameynaa adduunyada meel walbaad ka joogtaan Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh